السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنا أيها الأحبة waxay ka mid tahay sabab kale oo markaasi caruurta lagu qaato. Maxay tahay? Waalidka qurbaha markuu yimid wuxuu maqlay ama uu markaa in badan uu arkay yaanihi arin la leeyahay yaani maxaan ku raay ilmaha lama garaaci karo, ilmaha wax lagu ma sameyn karo, ilmaha wax lagu ma dhufan karo, wax la midka ah. Yaani in badan uu arkay oo buugaag han noqoto ama maxaan ku dhahay meel looga hadlaayo ha tago oo asaga sax ku arko ama dhagihiisa ku maqlo. Arinta waxay sabab u noqotay markaasi waa maxay in waalidiinta badankooda boqolkiiba 60 ama boqolkiiba 65 ay iska dhaadhiciyeen caruurtii inaysan tarbiyeysan. macnaha caruurta xataa haday macnaha yaani ay macnaha yaani wax xun ay markaasi ku dhacayaan ama ay sameynayaan in waalidkan ay ka dhaadhacsan tahay inuu number la hadlino waxba dhihin yaadhihin maxaa in laga qaato ka cabsanaya ogowna yaani caruurta inaad yaad dhahdo ama inaad yaani maxaan ku dhahay wixii markaasi khaladka ay sameynaa aad ka reebto waxay ka mid tahay waa tarbiyadii ka waran marka adiga hadaad aaminsan tahay in aadan yaani maxaan ku dhahay waxba aadan dhihin maxaa in laga qaadano ka cabsanaysa oo aad leedahay waa laga qaadanaa yaani ayaad leedahay sidaa darteeda maamay caruurteeda ayaa macnaha dhakhtaray tageen u fiirso waa arin horan ka dhacday 2016 يعني تقريبا بشي شناد لحد meelahaasi horay ka dhacday marka maamadan caruurteeda waxay u geysatay waa maxay yaani dhakhtarkii intay caruurtii ay marka ayada u sharaxaysay dhahaysay sidaana macnaha xaaladdu ay tahay qofkaas meesha ka xanuunsan cunigaas sida loo haya wixii la midka intay hadlaysay laba caruurta kamid ah dhakhtarku waa yaaban yahay muxuu la yaaban yahay caruurta midna miiska u koraya oo halkaas warqad ka jeexaya ka taabanaya mid kale alaabtii wuxuu ku mashquulsan dhakhtarka maamadu waxa ka dhaadhacsan aqligeeda yani ahaan haddii aad dhahday yani maxaa ku dhawareeyaa jac dhakhtarkii aad la joogtaay ama macnaha ku arkaa caruurta si xun u la hadashaayo ama lagu dhahayo kadibna sida laga qaataa sida darteed way iska daysay dhakhtarku waa yaaban yahay muxuu la yaaban yahay caruurtan edabta aan lahayn oo markaasi yani maxaa ku dhahay miiskan fuul halka fuul alaabtii macnaha yani dhakhtarkii ay haleynayaan haba yaraatay aynan farno dhaqaajinin shibka ay ka tahay ka aamusan tahay inday ka fiirsanaysaa bal hadalkeeda wadata dhakhtarkan hadalkeeda kuma socdo wuxuu la macnaha la yaabay oo marba kala fiirinaya markanoo raacaya inta u dul qaadan waayay ayada sheegaysa oo noo sheegaysa macnaha inta u dul qaadan waayay wuxuu ku yiri caruurtan macnaha yani sidaan ay guriga ku sameeyaan markaas ay tir maskiinta yani sidaan ay ku sameeyaan waxa caruurtu waxaad u baahan tahay inaad geysid marka yani qolada yani loogu talagalay markaas inay yani baarto aqligooda iyo caafimaadkooda iyo kada inaad macnaha caruurta ugu carun macnaha dhan macnaha ma ahan oo yani aqliyan wax si ka yahay ma ahan kaliya dhibta haysto waa maxay yacdi iyo warka joog iyo maya arintaas abis ka maqan waana Soomaali badan ay haysataa macnaha gabadha kaliya ma ahan waxaan ka hadlayno Soomaali badan ay haysataa almuhim waxa dhacday dhakhtarkii warqadu qoray waxay u timid meesha caafimaadkii arimahay u timid oo dhan intuu ka leexday warqadu qoray oo leeyahay guriga idin ku soo diri doona wixii akhbaar ah iga sug ayadoo waxay isleedahay marka waxa ku soo socota yani hadda waxay u tagtay iyo warqad isbitaal loo gudbinayo iyo arimahaas u haysataa warqad ordaysa u timid oo ay iga timid dadka la dhaho caruurtay tarbiyayaan oo macnaha yani aadaabtooda iyo guriga markaasi sida loola dhaqmay iyo macnaha waxaasay fiirinayaan warqadaas u timid oo lagu balansanayo ogow maanta wixii laga macnaha bisha soo socota taariikh hebel wixii laga bilaaba yani taariikhdaasi maalintaasi ilaa maalinta adiga isbuuc waa yani 5 maalmood oo shaqo ah shantaasi maalin 3 maalin oo kamid ah u fiirso markay ilmaha iskuulka ka yimaadaan guriga waa lagu imaanaya yani ilaa iyo yani habeenkii intay ka seexanayaan laba qof oo markaasi controlsha xaaladooda dhaqdhaqaaq la socota ayaa macnaha yani lagu soo diraya laba rufyaan ayaa guriga lagu soo fadhiisanaya macnaha marka maamadii warqadii akhrisay in badan ay fahmi weysay turjumaanay u geysatay waa loo turjumo xaliilo sidaa waa xaalada sidaasay ku dhaxeen hadalkan go'aan kan macnaha ka laabasho ma lahan waa kaas waa ka doodi kartaa laakiin yani waa arin dhacday المهم تاريخي marka la gaaray qoladii timid laba naag oo markaas isa socota ayaa guriga ku soo garaacday kursi u fadhiisteen wax kale ma qabanayaan buwaay wataan macnaha raqiibi actido kale halkaas oo fuuray hay ma isan la hadlaynin jaamac macnaha
ayada waxay u haysataa carruurtan in la fiirinayo ujeedadan waa maxay inay ilmo korin kartaa la fiirinayo macnaha ilaan dhakhtarkii wuxuu gudbiyey xataa inay hal hadal dhihin gabadhan inta uu alaabtiis ay halaynayeen oo ay miiska ku budboodayeen oo warqadaha ay jeexjeexayeen inaysan xataa awoodin gabadha inay ku dhahdo carruurteeda waryac ka soo dega meeshaasi waana samaynin maya hataaban inaysan ku dhihin almuhim markay u dhammaatay muddadii ay la joogeen warqad kale u timid la leeyahay naftirkaada caafimaadkaasi wax ka yahay u fiirso adiga caafimaadkaasi wax ka yahay sidaa darteed waxaan ka cabsanaynaa carruurtan inay sun cabto ama ay isdilaan ama ay meel ka soo dhacaan marka waxaa lagu qasban yahay carruurta in lagula haayo oo qof oo kula haayo qofkaasi wuxuu kula haynayaa oo keliya labada maalin ee sabti axadda ayuu guriga macnaha u imaanayaa asaa carruurta haynaya marka maamada yani sideeda kale way la dhaqantaa carruurteeda sida caadiyan macnaha maamooyinka Soomaaliya guriga marka la joogo yani waxa laga yaabaa qaarkood sida Soomaaliya marka la joogo kale inay la dhaqmaan wixii la midka almuhim sideeda normaalka ula dhaqantaa markii guriga ay joogaan ay maalmaha caadiga ay tahay sabti axad marka la gaaro shibta ka soo hortay ilaa waan la fadhiyaa meeshii way aamustaa almuhim say sidaa u ahayd ay u aamusnayd 2 bil markay arrintaa ku dhamaatay qoladan waxay gudbiyeen akhbaar ah in maamadan ay tahay in macnaha carruurtan laga qaado oo aysan macquulna ahayn inay sidaan ku hayn karto ay ku korin karto aysan tarbiyeyn karin markhaati waxa ka dhakhtarka markhaati waxa ka labadii dumar ee loo soo diray markhaati waxa ka hadana qoladan kale dambe ee sabti axad gurigan joogtay loo soo diray u fiirso ayada waxa isku badisay maxay ayadoo ka cabsanaysa ama ilmaha laga qaato oo yaha dhihin ayadoo islehaysa ayaa waxa dhacday waa maxay ilmihii indhaheedo shanta in laga qaatay sabab looga qaatay intaasoo keliya intaasi sidaa darteeda waxaad ogaanaysaa ilmahaada inaad tarbiyeyso oo aad yani macnaha yani aad yac dhahdo war waxaan ha samaynina waxaan ka hara inaad maya aad barto yani haa inaad macnaha maya haa maxaa ula jeeda waxaan ula jeedaa maalan wax walba ilmaha lama baro inay macnaha inay haa ay tahay yani waxaasi isii haa waxaasi hoo haa waxaasi haa macnaha maya waa inay dhegtooda ku dhacdaa sidaasoo kale haana waa inay dhegtooda ku dhacdaa oo maya aysa keliya dhegtooda ku dhicin macnaha hooyo kan isii ama aaba kan isii kanaan rabaa sidaanan doonayaa يعني وإني سنقول مية هان وإني مخلان سيدو كله مرك وإن أد ميزاناتا وأتكون ميزاناتا ومحي مرنا هذه مرنا ما يبي لابد بإني معناها ماشي يالان سيدو كله فعل أيوة عنيقان سمي فعل كأو سمي وإني وبرتاع عنيقاسي إني كرتب ميسو أما يكرر لنيسو وحول بو سميه خلط يعني هي عقابة نوع عسو كله مثلا هنأخذ حبس جوري هنأخذ تلفون كولا خاضو هنأخذ كمبيوتر كله ديدو هنأخذ محن كلها يعني إن لا ضمانته يعني خدم عنيست قربتها معناها خدم لهيت مثلا أما هديدي مركز لسين لها كذا إن أنا لسين مثلا عقابات كمتها معناها كلمة هنا أربع أعضاء أما هرانتيس أما أديشو كلمة هنا وين وصل سعتها برنامج نوع سكرة وان كان لدونا ديلك ويعلمتك لكن كلية ديلك هدوسا ما يشجولين ما أهن إن عروتي لقى مصايو وحبأنا النقص مني أما هاي من أنا لديهن أو ورجوج إيو يعني أنا لديهن ما معناها هديه إلى ما أهن إن قفك أو هذا إما إن جعنتي سبودو وح جراعه وفيرسو أما لوكتي سي معناها أي وح هرانتين يسو وح ديلو أما إنه هي كأمسو لا لغام مرة ولا ما ندونا إن معناها حد جذبتيو غالين نقطتنا مرة جافي إن النقطتيو وحي أتكأمسين مرة وفيرسو وإن هذا نقول معناها نقول لبضا ميت كوضا غالي أو معناها إنه خفكي ناخذ معناها مد يعني حد قدبه أو دل إيو دباتي واحد جلكي المها بابئنا إياه أما حنون يعني محنقول موخذة أما النبرة موخذة أوجي سنة وإنه نخفكي سمين سيدا سوكرة وإن أوصل نقول مد هبيراتي أنا الله هذل المهي كأموسا أو سيدا قفك وين وكرب ولا رحمة يعني تسأل أهل محقول الجيدا أنا قفك وين هدي مركا أو غلط سمايو يهدون غلط سمين يهدو حلايو أصلا إسفهم إسقرنا يا سيدا درت الأمة بهنا السحيد والتوسيسي كورا مركا والد كهدو المها أولاد رقم سيدا قفك وينه معناها يعني أيها السحيد دون أيها فهم دون لا عرورته هجامية وبهين هجامين إن له هجاميو لا ده هو حن ومعقول وحن معقول ماهن وحن هدا سميسيد وحساك وقول عاية ماشي ستكدع كرتا وحساك هذا لنكرا وفيرسو سيدا درت قبلي المهم سيدا سعروتي اللي وخاتي waxaa liir waxaan u baahan tahay adiga in lagu geeyo meel
oo aad maalin walba imaataa meeshaasi haddaad 3 bilood muddo aad imaato meeshaasi oo aan ku tababarno oo aan aragno in macnaha yani wax walba aad yani aad habaysatay oo noqotay qof isku filan markaasi kaale arag ilmaha lagu soo siinaya laakiin 3 bilood ilmaha haba yaraatay yani kulama seexan doonaan waa laga wadaaya u fiirso ilaahay fadligiisa waxay dhacday 3 bilood inay ku guuleysatay maxay ku guuleysatay wax alla marka waxay nooga sheekeynaysaa markaan waxay tahay mar alla marka ay noo macnaha ay soo laabatay soo guuleysatay oo caruurteeda loo soo celiyay waxay leedahay wax aniga igu ahaa dambi aan u arki jiray macnaha dambi wuxuu ula jeedaa macnaha wadamadan marka la joogo wax macnaha aan u arkay in caruurta isaga qaato ay bakuleeyeen ay tiri kuwan ku samay ilmihi ana waan ka cabsana oo maxaa kamid ah arinta soo sheegay inaad yani xabsi macnaha guri aad geliso inaad cuntada u diido inaad teleefanadii ama kombiyuutarkeed u diido yani wax walba ay jecel yihiin inaad ka reebto waxay kamid tahay dilkay kamid tahay aftirkeeda laakiin waa dadban weeyaan macnaha jirkiisa wax kuma aadan dhufan laakiin wuxuu asaga jeclaa ayaa u diiday macnaha waxaad tustay ficilkii ama arintii uu sameeyay xumeed in ciqaab ay yeelatay ama ay leedahay sidaa darteeda waxaa ka dhashay waa maxay waxaana ka dhashay ilaa tusaale ahaan maalan nal ayaad gaduud ku jartay gaariyaad wadaa nalkii guduud ayaad martay adigoo qofkaasi weyn nalkaasi guduudka aad ku jartay marka la joogo Yurubta kale ee Ingiriiska aan ka ahayn ula jeedaa waa lagu ganaaxaya ganaax macnaha lacag €100 €150 kada adiga intaas waa lagu ganaaxaya ama Ingiriiska marka aad joogto way ka duwan tahay oo points dhibciyaal laga qaadaya 3 dhibic oo 3 point laga jaraya macnaha ilan laysanka awal 12 dhibic uu ahaa 3 hadii hadda maanta laga jaro khalad kala sameey 3 kale laga jaro waa dhibaato marka yani macquul ma tahay marka ficilkii adiga aad sameeyeen marka aad ku gudubtay inaysan ka dhalan wax ciqaab way ka dhalatay waa kaas sharci degsadeen waa ciqaab maxaa ka dhashay waa maxay in pointiyo laga jaro meelna in lacag intaas qadarteeda macnaha in laga qaado ogow marka يعني إنسانك إن معناها يعني حدود لو يلو سيب ilmaha tarbiyadooda waxay ka qayb qaadanaysaa koritaanka aqligooda marka haddays hafiirsan in ilmaha intay dukaan galaan ay dukaankii halka ku boodaan halka ka soo qaad nacnacaasi qabo shukulaataasi qabo halka haraanti gab wixii dhan isku haleeyaan kadibna maxaan ku dhahay dhoodi aad ka shalaysid marka lagu qabsaday إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها